ماشي ay ka dhacayso shirka wada arkaysaan waa hotelkii lagu balansanaa sida u jeedaan نبل على البيجريين البيجريين هتبقى أول مافيا My people, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you. We have leaders, we have no leaders, we have leaders, we have no leaders, we have leaders, we have no leaders, we have the mafia. We need the legends. Don't kill our people. No more genocide. No more genocide in 2019. No more genocide in 2019. Don't kill our people just for oil. Don't kill our people just for oil. Don't kill our people just for oil. We don't need it. Oh, waka. Somali oil is not for sale. Our country is not for sale. dalkeena deganaansho ma laha dawladnimo kama jirto dadka isma ogolo dalka isma ogolo dadkaas kala taagan oo saas ah in security shabaab iyo meel ay joogaan oo shuruuc iyo qawaaniin laga ilaaliyo kuwa noo imaanaya iyo annagaba bay'adeena iyo carruurteena iyo wax ilaalinaya aan jirin in waxayna waa la qaadanaya ilaa ka yeelina mana ugu aabeeyeen insha Allah taala waana diidanahay taasana dadka kumanaan ka hadda soo socdaan jirka marka wali shaqada ma joogay qof kasta oo diiday waxa la hakaco kuwa maanta loo joogo ma aha leaders dalka hogaaminaya meel fiican kuwa waxay siiyeen shirkad Chinese wadda Soomaaliya oo malab ku jiro dhan wada mataqaanaa xaflad haddana dhulka wuxuu ku jiraa waraaqo maanta jooga marka wadda dhinacaas kale oo shaqada ahaan waxaa siiyay oo loo rabaa dib socda Kenya دربيا dadka loo dhisay cunsurinimada oo la leeyahay hadda laga ilaaliyo ayagoo jooga damiir xumadaas iyo dacfigaas dawladnimada ay taayaan anaga dooranay marka ma ogolaan insha Allah taala waan inay baxaan hadii ilaahay yiraahdo waan diidanahay ay soo halgamay oo wadankan waligood soo dhimanay hadii la garan lahaa madiin ma wadan baa haysan lahayd waxaan leenahay shakhsi lama wada garan karo
شخصي لما لكن حكومة Somalia is not for sale. Somalia is not for sale. Somalia. Hallo. Somalia is not for sale. Cannot sell one group. Somalia is not for sale. Somalia is not for sale. Somali oil is not for sale. Somali oil is not auction. Somali oil. We are not accepted auction for Somali oil. Come out of the road, please. Come out of the road. Stop tanning! نبغى البقريين البقريين تبدا اول meeshaan ma aha meesha la iscaburinaayay meeshaan camar maaha waxaana kawsanaha dadka inay ka bartaan dimuqraadiyadda iyo qaabka nabadda qofka shacabka u soo bandhigaan ma jiro nabada maasha allah على قاسم
shame on you, 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 خيرك وارك فرماجك وامس 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 خيرك وارك خيرك وارك meeshii mas'uuliyadda laga saaray ee uu hagahayo gurigooda iyo calooshooda war dalkaani dal calool lagu qaado waa ka weeyahay dadkaani dal calool iyo dhuuni la siisto waa ka weeyahay waxaan leenahay oo aan ku celcelinaynaa dadka dalka dhexdiisa jooga ha kaceen ha tooseen ha aqbaleen waxaysan huri doonin waa inay hadda aqbalaan oo iska difaacaan waxaysan huri doonin albaabkaaga ka bixi maysid khayraadkaaga kama hadli kadhib sharaftaada ma difaaci kadhib war cidina ma qaadan doonto cid qaadan doontaa ma jidho cid yeelaysaana ma jidho inaad horay u gashaan oo aad ka hadashaan oo midka caadaqaataha ah oo laynii soo adeegsanayo oo magaciinna ku hadlahaya aad meel iska saadhaan baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay inaad xuquuqdiinna sheegataan kuwa baarlamaanka sheeganaya waad ogtihiin waxay idinku falkiyeen waad ogtihiin waxay idinku saxiixeen waad ogtihiin meesha hadda ay wax u socdaan dumaadka iyo burburka ay raallida ka yihiin oo ay fiirsanahayaan inaad iska fiirsataan oo gacmaha isi saarataan nasiib darro inii soo hodatay weeye waxaa la yidhi umushibaak waxay ku dhalaysaa checkpointi meelay madha male odagii baa meeluu marala kii dhiigga ku karay baa meeluu marala meel laga shaqaysto oo ilmaha wax looga raadiya male bajaastii xabad baa wejiga looga dhufanaya tagsiilihii waa la dilahayaa dukaankii waa la baadahayaa oo see ku noolaanaysaan marka waad ka istaagi doontaane haddeer intay wakhtiba wakhti yahay ka hadla sheega waxayna dhibahaya sheega wixiinaan raalli ka ahayn sheega waxaan xaquuq laynkugu lahayn sheega waxaad leedihiin oo aad u baahan tihiin xorriyad baad u baahan tihiin dal baad u baahan tihiin dad baad u baahan tihiin dhaqaalaad u baahan tihiin noolol iyo ixtiraam baad u baahan tihiin diintiinna oo sharaf ugu noolaataan baad u baahan tihiin garta oo ka kaca laakiin haddaad tidhaahdaan calool baan cunaynaa uur buuxaan u baahanahay oo shakhsi cuno anaa qabiilka magaciisa ku hadlahaya sidii ragaan hadda ogahay oo yidhi waxbaan soo qabannado waxbaan soo noqonnay oo raashin inta soo cuna in marin habaabinahaya oo le reer hebel meeshaan reer hebel kulama hadli karaan waxyaalahaas waxaan aqbali karna ma aha wax la yeeli kara ma aha traitor is qaa'in wadan is qaa'in wadan he's a robot he's no human being he hasn't got morals he's a traitor he hasn't got norms he is not fit to rule he is handicapped he's disabled he's mentally disabled he hasn't got a brain he hasn't got heart he hasn't got deen iman midu dhaqan midu leeyahay male ee qaa'in wadan waa farxadna maanta inaan joog ka nahay meesha Soomaaliya isku timid Soomaaliya halka isku timid waxay ka wada diidinayaan kana xun yihiin dhulka la boobayo iyo dalka la boobayo iyo dalka la xaraashayo iyo shidaalka iyo kheyraadka la xaraashayo waxaana leenahay
damiir kale oo u soo istaagtay inay ilaaliso dhaxalkii ubadkooda iyo resourcigii dalkooda oo ay qolo dalaaliina rabto inay jeebadaha ku qaataan waqti yar marka halkaas markeeda waxaa jooga shacabka Soomaaliyeed deganaa London iyo agagaarkeeda waxay diidan yihiin shahaadaduunka halkan ka socda oo dowladda ka mid ah halkan u timid inay markhaati ka noqoto Soomaaliland gas iyo spectrum inay mataqaanaa qolobadeena mataqaanaa iibsadaan ay gataan oo soo saartaan dadkeeniyo baaba'san dhulkeeniyo ammaan aan lahayn ayagoo shuruuc iyo xeerarna kala qabta aan lahayn ayadoo dowladdeena ayna adkayn oo dowlad ay tahay dowlad wadiga yaa waxaa la rabaa dalka in la caburiyo ayadoo cidna loo sheegin waxaa jeebka la gashta baarlamaankii waxaa jeebka la gashta golaha wasiirada waxaa la rabaa shacabka Soomaalida in jeebka la gashto qolooyin dalaaliin ah oo aqas naas ah oo calooshooda kaliya ka fikira ayay media ay meel walba geeyeen oo dadka mataqaanaa been ugu sheegeen intaasay rabaan inay dalka iyo dadku ku qabsadaan suurtagalna ma aha tuug iyo mataqaanaa nin xun inaan waddankeena ku qabsadaan suurtagal ma aha marna ma yeelayno shacabku waa kacay u kacayna waay biidnillaahi alkariim maanta laga bilaabo kacdoona bilowday kacdoonada hore waxay ka bilaaban jireen waddanka gudihiisa kan wuxuu ka bilowday bannaanka si silmi ah wuxuuna imaan doonaa asagoo ah تحرير وإمام مقالة مقدسة إن شاء الله تعالى عب هي متقنا صوحا يجوه يا متقنا إن شاء الله تعالى أورد ناسيد لورد حسن مبارك وكاتدي لا يرادو ما أقولنا إن ذلك إن لقاته ما أقولنا ذلك إن دلاله ذلك إن إيب معه وحيبرت إن ذلك إيب صدق بطل بعربان كان إيب صدق هل كان أن جوجنا وحال إسكندي إن متقنا هل كان أن لقيسوا قيب قلمان تو على إيماني وحاي مدد وين وأمنيات كشقة هي متقنا دولتي وطن وأن معيض حتى عن شيءنا وتقانان يا يمد وشري طريقة لندن العقل وريقة العقل اللي قصوا على مساكين تا صومالي كان عصدها إسلام تشقيتنا العقل اللي قصوا على يا وحال ربعين إسلام وأول ماشان جوج إن وجود دلالة إنه ماشان كسوا قيب قلي ما أقولنا إن دول كان إيب معها دول كان إيب معها حرية القول كان ماشان وافري عدل عندنا كرنا ملها عدل وديدي كرنا ملها لعقنا وحاكوا دول كان منصب وحاكوا دول كان وحول بوحاكوا دول كان لأجل الوطن عن ماشان تاجنا هاي ما أنا كتنازل إن شاء الله تعالى وأنا صاحب بالله نهدي لا إرادة شو قدر شهادة زور كان وحنا شيء أنا كلا بتان وجهي هذا واقف وجهي هذا واقف عندي صور استاي كلامنا مرة هذا جاي ده عارف يروح على شو هو ضعيف قال والله قال إني هنقولي كلي وتاجيين هنقولي هذا ما أنا ده كان لكن ما أنا ده كان ضد كيس كلا هاي عمره هذا وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى فني وأنا لك العقبة التي عمر لك صوت عادي هم بعض الحقوق أنا إذا الله يلا يسوع دليل النية والعقل وحكم جوجي ما يقدر ما يسكره عقل الإنس الشيء الصومالي هذا عن نبضي نيجي بحشانة هذا عن نبضي نيجي بحشانة أنت قال الله يقرأ يسوع غيرت وحاويان وحول الشرع الله صحيحين زحمة ضبط ضمير كذا صوصار قرأ أنت تجي ولا دار يا مركز دمارة فيديو كشك الشركة بعض أنا بحب زحمة أنت ضمير لهذا الصومالي وأنا وذينا عدو ربنا وعنا الصومالي بريشة جروب وعن بريشة صارينا ودتك وحول بيسو دولتنا صارينا مامورنا صارينا حزبينا صارينا عدو ودان صارينا عدو وحولا سوى ودنا وكنت غيرنا ku hadlaayo gudoomiyaha haweenka jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Britain magaceeduna Galbeedyo waxaan maanta shacabka Soomaaliyeed hadanahay aan isugu nimid waxay tahay annaga ka damqanay ka xanuunsanay dalkeena xaaladaha ka jiro annaga dalka Soomaaliya runtii maanta in annaga wadan xor ah joogno oo annaga aan citizen passport aan haysano in dalkeena horteena lagu xaraasho wadan annaga aan ku noolnahay lagu hor xaraasho baan diiday shacabka Soomaaliyeed shalay badooda hortooda lagu gatay waan diiday shacabka Soomaaliyeed xilli oo
shidaal ka hadli kara maanta ma taagno dalkeena 30 sano oo dagaal ku jiro dadkiisu waa daalayeen dadkiisu waa barakacsan yihiin sidaa darteed maanta in la yiraahdo shidaal iyo hawlaan gaarin oo sharciga baarlamaanka iyo dastuurkii oo lagu ilaali lahay shuruucdaas wadanka kama jirto dawladda federaalka waa cambaaraynayna dawladda federaalka waa cambaaraynayna shalay dareenka shacabka ku timid maantare inay macnaha dalkii Soomaaliya kala googooyso kala waxayso raali kama mid shacabka Soomaaliyeed waa diiday dalkeena ma forsel dalkeena iyo kheyraadkeena lama qaadan karo sidaa darteed intay gabar intay naga dambaysan dalkeena ciyaar laguma qaadan karo shacabka Soomaaliyeed maanta waa u jeedaan waxay dhigaan waa u jeedaan shan habeenba ma ayna seexanin sidaa darteed annaga waa diidanahay dalkeena wadanaan joognaa wadanka aan joogno shuruucdiisaan ku joognaa arrimihiisa ma faragashano annaga wadankeena maalin walba arrimaheena la soo faragashtaa maalin walba xuquuqdeena la dhacaa hadda dawladda federaalka shiinays ayay lacag ka qaaday hal ilbirqsi intaas tan oo malaayigi tuunada ahay ayay daldalanaysaa annaga dawladda federaalka waa cambaaraynayna xukuumadda federaalka waa cambaaraynayna golaha fulinta ra'iisul wasaaraha waa cambaaraynayna madaxweynaha waa cambaaraynayna shacabka Soomaaliyeed shalay say ugu istaageen iyo saa ugu lisnayeen nooguma habaynin haddayna wax ka bedelin siday hadda ku jiraan maamul goboleeday la dagaaleen shacabka meel walba kula dagaaleen siday hadda ku socdaan 2 sano hadda ka bacdi ma basuul karnaa haddayna wax bedeleen hana dhaafaano kursiga hana banaan golaha shacbiga ee baarlamaanka saan u dooranay codkeena inay ku hadlaan hadda maanta waxa ku sugan gudoomiyihii labaad ee golaha shacbiga ayaa ku sugan UK shirkaan uu ku sugan yahay Cabdiwali Raashiid Muuday Cabdiwali waa cambaaraynayna golaha shacbiga codkiisa ku fadhiya inta uu shacabku u doodi lahaa ayuu maanta waxaana soconaynin ayuu soo kala fadhiistay baarlamaankana waa eedanayna madaxweynaha waa eedaynayna xukuumadda oo xasan cali qeyre golaha fulintiisa waa cambaaraynayna sidaa darteed Soomaaliya ha noolataan leenahay Soomaaliya ha israacdaan leenahay furaha maanta iyo mudaharaadkaas arkaysin wuxuu asal u yahay dalka Soomaaliya meeshii laga badbaadinahay laga bilaabo wixii hor qalad u dhacay iyo wixii hadda ka bacdi waxa u taagan intaas oo jaaliyada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan maamul goboleedyada qof kasta u taagan wabillahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Somali oil. No for sale. Somali oil. Somali oil. Somalia gas. Somalia. Somalia bonus. Somalia fish. Somalia seeds. Somalia pork. Somali people. Somali suffering. Somali fish. Somali pork. Somali borders, Somali sovereign, Somali people, our children, our brothers, our sisters, our daughters, our children, our animals, our resources, our people, our Somalia, our brothers, our brothers, our leaders. Our people, our borders, our livestock, our birds, our fish, our sovereignty, our border, our people, our parents, our mothers. aad baad u mahadsantihiin walaalahayna waxase waxa baxaayo waa wada arki kartaan waa wada dareemi kartaan magacayga waxaa la yidhahdaa ciise guuleed waxaan ahay scientist Soomaaliyeed waxaan meeshan maanta u imid inaan ogaado waxa ka socdo shirkan iyo waxa uu yahay shirku wuxuu ahaa shir lagu xaraashayo xoolaha ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan gaaskii iyo shidaalkii aan lahayn gaaska meesha lagu iibinayay waxa iibinaysa shirkad la yiraahdo Spectrum waxa ay rabeen waxay $3 billion anaga siinay $3 billion haysanay dhahan anaga hana laga gatay
فات waxay maada marka ugu yaraan 87 company ama shirkad oo raba inay spectrum ku 3 billion dollar invest gareynayso inay shidaalkeena ka gataan dawladdu waxay joogay muuday ninka baarlamaanka ah wasiirkii oo joogay batroolka group kale oo badan way joogeen journalistiyaal badan way joogeen waxa ay su'aalo weydiiyeen ma lahayn aad bay u adkeed communicationka wasiirka in la fahmo markuu aqrinayo dib bay ahayd Englishka inuu si fiican u hadlo wax badan nooga sheego marka runtii meesha waxa ka dhacay waxay ahaayeen disaster 3 billion barrel maalintii soo saaray yaa gatay yaas laga gaday waxa laga gaday oo laga gaday dadkaas meesha jooga kambiyaasha tirada badan waxay iibinayay spectrum oo 3 billion dollars haysato ana lacagti haystay tiri shidaalkina aniga haysta ani iga gata ya aniga invest gareynayo meesha saasi u timid license saasi loo gadaa dawlad timeline maya dawladdu waxay la timid timeline oo ah xilliga farmaajo joogo kaliya laga bilaabo maanta ilaa 31 bishii Janaayo 2020 bas ya ka hor hadii aadan keeninina license idin siin ya famsa timeline ku dawladdu oo wasiirka akhri wuxuu ahaa 31 January ka hor hadaad noo keeninina applicationadiina process meediisu ya ايوه marka wuxuu ku base gareysnaa timeline waxa xataa u ekaa in dadka oo meesha joog la handadayo leeyahay hada keensi weysin waxa ma idin qabanay fiye jiro ay dawladdu leedahay laakiin lama cadeynin inta asnaadna waa fahmay markaan maanta halkan waxaan isugu nimiday inaan muujino shucuurteena ah boobka lagu hayo khayraadka dalkeenna waxaana runtii yidadiilo fiicana in ummadda Soomaaliyeed ay halkan ku dan tahay iyadoo aanan koox gooniya aan xisbi gooniya ama deegaan gooniya aan ahayn waxaan kulligeen ka soo horjeednaa oo si dhab u diidaynaa in khayraadka dalkeenna iyo ummaddeena la boobo la xaraasho waxaan leenahay waanu diidnay shirkadaha la qaldayo iyo dalaalinta dawliga ah iyo kuwa ku matalayo dawladda daciifka waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed way diin jeedaan waana diidan yihiin arrinta noocaas waxaan leenahay laga waantoobo hana laga joogo waxaan leenahay halkan waxa sugan boqolaal Soomaali ah oo muujinaya shucuurtooda meel kasta ay joogaan sidaas ay u muujin doonaan waxaan leenahay khayraadkeena for sale maaha dhulkeena for sale maaha dhibaatadana hayso waa in ay shacabka Soomaaliyeed ka soo kabtaan waa in dib u heshiisiin la sameeyaa waa in la shimeeyaa xeerar iyo heshiis haddii wax la soo saaray diidi mayno wax la soo saaray laakiin waqtiga la soo saaray baarlamaanka oo afduubto waa in la deeyaa xorriyadiisa uu dib u helaa baarlamaan ma jiro maanta waxaan ognahay in jeebka la gashtay waxaan ognahay in wax badan u tuntay waxaan ognahay in waddanka xaaladda uu ku jira aanay xaalad caadi ahayn waxaan ognahay Itoobiya oo ognahay taariikh ahaan dhibaatada naga dhexaysa maanta inay iyaga hogaaminayso waxaan ognahay inay hor u diido Soomaaliya dawladaha safka hore inay soo gelin Soomaaliya maanta iyaga maamulay khayraadka waddanka waxa loo saxay China iyo shirkadaha oo aan ognahay lagu tilmaamay Juuj wa Maajuuj waxay reebayaan malaha war sidaan xaq ma war ummadda Soomaaliyeed ay maqla diida kuwa dawladda lagu matala aniga inaga dhasheen waa inay ku shaqeeyaan rabitaanka shacabka haddayna ku shaqeeyaan out baan leenahay isaga meesha saas baan leenahay ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay ku baraaruga inaad ilaalistaan xuquuqdiina midnimadiina dalkiina saasaan leenahay welcome kusoo dhow koyne balaamaha koyne bayan koyne dhibaatooyin waddanka diyaarhay gaastoo gabdhahay naftala gabdhahay oo yani xaraashte baylada wal baarlamaan aan soo marsiine ee mataqaana aqalkiisana aljeyne shacabka Soomaaliyeed aan bandhigne tuuga waaye mafadaano noolfaareed waaye dala dileen dala xasuuqeen dala xaaladooeen ilaa iyo haddana gacanaha male tuuga waaye baylada dowladda farmaajo may sheegaane xaraas bixe khayraadka dalka Soomaaliya xaraas bixe
إمارات محمد قصير